واتهاي بروفيسور سفر آديات وماتيهاي إنه أنا وحسين هيدو قدوم ما نسلاين أو يرادا قدوم يهينا وماتيه وعن رواينا هذا ويهرو مدان موليد معانا الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. horey waataan u sheegay dadka anaa u afgaaban waxaana la igu kalifay maanta inaan hadlo intaan munaasabada ka hadlin waxaan rabaa inaan sheego saacadkay sifir ayaa wuxuu yidhi adduunyada kale qofka murashaxa ah asagaa la dhiirigeliyaa wax la siiya intana murashaxiyaa raba in wax la siiyo murashaxaan Soomaali jilaal dheer oo ka yimid laaluush ma qaadan waayo xogaagaas yar khashamaysiga la yiraahdo laaluush ma loo ogolaaday murashaxiin xildhibaanada khashamaysiga hala siiyo waayo laaluush ma aha xoog ma dhagar ma khashamaysiga la yiraahdo سفر أمريكا وكي مدولي وأخوين ياي وحمروا جاه وركيسي أنا لو مغرب مركب تاهل كأبو بحر وحاكم مع العليل عقلتها شرفت له مولانا عبد الله يوسف أحمد مدعوينها بونتلاند أنا مدعوينها جمهورية الصومالية مانتا كما موسى صاحبتي حلبانada maadaama asaguna xildhibaan yahay waa ka mahad celinayna qadadan sharafta leh waayo qadab particular ah waay qadooyinka noocaana xeero soora lama horo dhanaankaasi waxa la isku dariyaa wax weyn kalka qofkii islaho caloosh meesheedii ma tagin nidaamkeedaba sidaan raali ah markaan halkaa taa uga baxo wiilkii aan abtiga u ahaa maxamed dheere ah khudbada ku horeeya wuxuu yiri waxaan u mahad celinaynaa mudane cabdulaahi yuusuf oo ka mid ah ragga ugu cadcad de maxamed dheere joorow ka socday gobolkuu ka socday anigu waxaan ku fikirayayba dadku ugu horeeyo codka bixiyay maad noqotaa oo maxamed siiyo waa fikiraa ku jira hadda asagayba hadduu cadcad ay sheegtay kulligeena waa cadcad kulligayna waa cadcadnahay wax la qaban karo male waxaan ilaahay ka baryaya oo rasuulkiisa ka baryaya madaxweynaha ummadan Soomaaliyeed ee 14 sano dhibaatada ku jirtay adoonka khayrka qaba ilaahay asaga ogeey ee dhibaatadan naga bixin kara ilaahayna la garab galayo shacbigiisana la garab galayo ilaahay waxa nagu dhiibay anagu ma garan karnaa ilaahay tawfiiqdaas nagu toosiyay kaasi qulubtayna ilaahay ha geliyo madaxweyne geesi ah awoodiisa dastuuriga ah isticmaali kara geesinimo ku isticmaali kara oo aan maxaan dhahaynin ilaahay wax noogu dhibo waayo dalkan Soomaaliya nin geesi ahaa maamulan kara يعني فولي حالكيسو والسوقي هذا كور واحد يرنم فولي نجلسي على سفر سلقنا وراح لي جيتك وقول عليه مركا وراح لي جيتك وقول عليه وكي جيسي قال ورا انت المقدوة مسعون كريت وين كبري عن حوغاga ما geed hoostiisa saxle dabayshita ki geesiga markii uu dhinaca dhabarka dhigay buxuuro bilaabay ki fuliga ah meel kasto khajab ka yeerto soo qor ugu tuurayo dhagax ugu tuurayo 9 saac way ku gaar markii dambe uu hurdinayso meel oo seexda waayo geesiga kiciye markaas wuxuu yiri Umar ha waxaan ku warsahay yaa hurdaan tacbaan ay labadayna dhaxdayna intee waay
laba qofood waxaa la rabaa intana in laga xigo intana laga xigo lamay warbadka laga dhameeyay lamadayna dhax ma helaysid ama inta mar ama inta mar maya hurda ay hayso dhaxdayna rabaayay intee waa kusaas oo go'aan lahayn oo shacbigan maanta u baahan waqti gaaban 5 sano Soomaaliya waxa lagu soo celin karaa heerka ay maraysay maalintii dagaalka Sokoy bilowday 5 sano wax yar ma ah 5 sano Soomaaliya waxay ku noqon kartaa below zero hadda zero joognaa حسابات ماتماتيكا waxaa laga bilaabaa 0 1 2 3 and on below 0 inaan u noqono anigu marabna waxaan rabnaa sida ilaahay qadarba asaga yaqaan Soomaaliya maanta dawlad u baahan tahay anagana dawlad u baahanahay dawladuna deedeel maaha anagu Soomaaliya anoo ku hadlaaya magaca walaalahayga aad warkayga ka sii doontiin magaca walaalahayga aad warkayga ka sii doontiin anoo magacooda ku hadlaaya waxaan idin balan qaadaynaa haddaad madaxweynihii dhabtaaga loo baahdo doorataan oo aad dawlad dhistaan hunguriga idin balan qaadaynaa wixii beer ka soo baxa idinkaan shacabkaan kordhinaynaa wax la arkaan kordhinaynaa 5 sanaan rabnaa si dhaqsiya inaan ku soo koobno waxaan ballan qaadaynaa guri dambe inaan markab lagu keeno waayo Soomaalidu waxay aad u jeceshahay bariisna jooda laga taxta hado baan wax ka noqon waa la igu sharfay inaan ka furbeeyo وانا استعبقابنا ايضا هروشي وحان الهي سبحانه وتعالى كبرينا انت اضونا ان السقوط من الهي وكأقلان الهي سبحانه وتعالى اسافرات في سكوجر ادعوني استجيب لكم وقلنقات الهي خادمة قال البرية سيربتي انا ايدي من الهي وحان الهي كبرينا ورسولك كبرينا وانبياء كبرينا واولياء كبرينا Soomaaliya waa dhibtootay inta yar ee noo dhama ilaahay inuu nabadgelin ugu gudbiyo dadkiina is sharxayo meesha war yar oo hoosta la siga sheegaya 3 bili socda waxa la heblow hadii kharjaf laga siiyo wax waaye waa socda heblow alaabtiisa haddana oo li marsanoosa qoriisa heblow war badana socda ballan qaadna waa samaysan waxa la rabaa ninkii musharax oo hadii ay baraka mala gaarto oo si drabtid wax ku waayis iimaanka Allah ku geliyo maslaxada sharafta magaca sumcada ummadda Soomaaliyeed daraadeed waxa la rabaa taariikh inaad sameysaan musharaxiintiina ee la yiraahdo heblow maalin heblow si dimuqraatiga ayuu wixii ku ogolaaday uu ku waleeyay كل وحان إلهي إذن كبري يا إنو أقعدي إذن كدقوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته